الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أدبا لون سلامي والله دمانتي ميل كستو الدنيا على ذات كجوكتان waxaan hawada idin soo marinayaa salaan diiran waxaan rajeynayaa inaad ii faraxsantihiin dhammaantiin haddaad igu cusub tahay soo dhawo walaal program waxaan channelka ku soo gudbiyaa kala duwan oo runtii aad iyo aad idin xiiso gelin doona hayga ilaawin fadlan inaad suulasha taagtid maaragtay baranka subscribe ka taabatid oo maaragtay aad channelkayga aad ku soo biirtid ayaan ka rajeynayaa insha Allah waayahay waxaan dhexda kaga jiray programada caruurta oo rabay dadka inaan u faa'iideeyo waxaan hore uga soo hadlay ilmuhu markuu dhasho sanad ilaa 5 jir ayaan hore uga soo hadlay haddii aadan la socon channelkayga ayaad ajaradaha aad ka helaysaa dib ugu noqo fadlan dadkii hore ila socdayse caawa waxaan rabaa inaan programkii halkiisii aan ka sii wado oon 5 jir ilaa 10 jir aan caawa ka hadlo waayo horaan idinku sheegay 3 qaybood baan u kala saarayaa baan idhi sanad ilaa 5 jir ilaa 10 jir kan waxaa ka dambeyn doona hal yani program oo caruurta uga hadli doono hadduu ilaahay yiraahdo oo 10 jir aan ka bilaabi doono ilaa heer college marka caawa waxaan ku soconayaa programkan 5 jir ilaa 10 jir inta u dhaxaysa xaqiiqatan ilmuhu marka uu jiro 5 sano waa maskax fresh ah waa maskax cusub waa maskax diyaar ah oo yani ebraho u baahan wax in lagu shubo waa marka ugu fiican ee ilmuhu wax walba aad u sheegi karaysid oo ka maqlayo oo wax walba aad ka dhicin karaysid oo wax walba aad ku duubi karaysid maskaxdooda waa markaas 5 sano ilaa 10 jir waa inta ugu fiican ee ilmaha aad hadda wax wanaagsan ku shubtid ma aragtay uu ilmahaasi uu noqon doono ilmo ma sha Allah waayahay xilligaas maadaama uu yahay xilliga ugu fiican ee ilmaha wax lagu shuban karayo maskaxdiisa way ku diyaarsan tahay waa maskax braniyo ah oo u baahan in la program gareeyo sida computerka markuu cusub yahay loo program gareeyo ay u baahan yihiin in maskaxdaas la training gareeyo oo la program gareeyo wax lagu shubo sooma waayahay dhowr qodob ayaan caawa soo diyaariyay oo runtii aad iyo aad muhiim ah oo ilmaha haddii qodobadan aad ku shubtid aad ilaahayna la kaashatid oo dadaashid aad kala kulmi doontid ma aragtay wax wanaagsan oo ma sha Allah waayahay programka oo horeeya ilmahaaga waa inaad waalid hadaad tahay ilmahaaga ama ha yaraado ama ha weynaado waa inaad la leedahay wada hadal communication wax la yiraahdo ilmahaaga waa inaad wada hadal aad ilmaha la leedahay hays oran ilmahani waa 5 jir ilaa 10 jir oo waxba garan u maayo ya marka qodobkooda waxa weeyaan ilmaha inaad wada hadal la yeelatid oo inagu maadaama aynu nahay dad islaam ah oo ku nool maaragtay cari gaalo oo western aynu ku noolahay ilmahaaga waa inaad wada hadal wanaagsan aad la yeelatid waa inaad ilmaha ka dhaadhicisid in aynu nahay dad islaam ah oo ku nool cari gaalo ah sooma ilmahadoodan u sheegin dee ogaan u maayo waa inaad u sheegtid diinteenna dad inagu islaameynu hoosaas ah dadkan ila noolahayna waa dad gaalo ah oo sidaas ayaynu ku kala duwannahay oo ilaahayna ugu kala duwan soomaha waayahay waxaad kale u sheegaysaa baahada aynu ku noolahay gaaladu dhaqan gaar ay leeyihiin oo maadaama ay gaal yihiin ay saa ku dhaqmaan inagu dad islaameynu nahay saas ayaynu diinteenu qabtaa oo ayaynu saas ku dhaqano ya ilmihii diintiisii baad u sheegtay waxaad u sheegtay baahada aynu ku noolahay u sheegtay waxaad kale u sheegaysaa dhaqanka islaamka iyo dhaqanka gaaladu inay kala duwan yihiin ayaad u sheegaysaa marka inagu kaynu nahay maadaama islaam aynu nahay ayaad ilmihii baraysaa ilmihii iskuulka markuu tago inuu cuntooyinka iska ilaaliyo waayo laynuma banaynin oo dee xalaal ma aha waa xaaraan marka hooyo iska jir sooma ilmihii waa inaad bartid oo training garaysid waayahay qodobkaas qodobkii koowaad buu ahaa qodobka labaad waxaa weeyaan ilmahaaga waqti badan waa inaad gelisid waqti badan ilmahaaga waa inaad gelisid ilmaha cunto sii oo guriga ha joogo ilmaha cunto sii oo iskuul u daa maaha ilmuhu xoolo maaha waa inaad ilmaha waqti badan aad gelisid weeyaan xaqiiqatan ilmahaaga waa inaad baahidiisa aad ogaatid gudaha ah iyo baahidiisa ma aragtay banaanka ah ilmuhu markuu iskuulka ka yimaado waa inaad la sheekaysatid maanta dhan buu la joogay macallimiin maanta dhan buu la joogay arday ilmaha waa inaad la hadashid oo tiraahdid
maxaa hooyo soo dhacay iskuulka maanta maxaad kala soo kulantay macallimiintaadii ka waran kalaaskaagii ka waran ardaydii aad la joogtay ka waran ilmaha waa inaad wareysatid kor iyo hoosba sooma haddii yani aad ilmaha wareysan dee dhibaato badan baa imanaysa oo wax badan ayuu ilmuhuusan ogaanaynin adiguna aadan ogaanayn laakiin ilmaha haddii intaad waqti badan aad gelisid ood la sheekaysatid oo marxaladiisii uu maanta dhan ku sugnaa intii 8 saac uu kaa maqnaa aad ka wareysatid wax badan ayaad ka ogaanaysaa sooma carruurtu waad ogtihiin way isku faanfaanaan waxan baa naloo sameeyey kan baa naloo sameeyey haddii uu soo arkay ilmo saaxiibkiisoo kaba loo soo gaday dhar loo soo gaday ma aragtay isagu wuxuu jeclaan lahaa yani si aad u ogaatid waxyaabahaas oo dhan waa in ilmaha baahidiisa gudaha ah iyo baahidiisa banaankaba aad og tahay oo waalid indha furan dhaguhu iyo indhuhu furan yihiin fah ah aad tahay weeye okay qodobkaasi waa qodobkii labaad weeyaan qodobka saddexaad waxa weeye ilmuhu waa ilmo soo koraya wax wanaagsan buu samaynayaa wax xun buu samaynayaa markuu ilmuhu wax wanaagsan sameeyo hadday noqoto dhinaca iskuulka uu bundooyin fiican sameeyo homeworkiisa hadduu sameeyo haddii emailo lagu soo diro maaragtay lagu amaanayo ilmaha wax wanaagsan iskuulka inuu ka sameeyey ilmaha abaalmari ka farxad geli ilmaha haddii adigu hawl aad u dirtay ilmaha inuu qolkiisa soo hagaajisto dharkiisa la laabto sariirtiisa goglado ma aragtay adigu aad adeeg yar guriga uga dirsato way waxa ay soo qaba aad tiraahdo ilmaha waa inaad ammaantid oo ilmaha ma aragtay aad farxad gelisid oo haddii uu jecel yahay cunto banaanka carruurtu isku mid maaha way kala duwan yihiin hadduu cunto xiisaynayo banaanka ah cuntadaasan hooyo kuu soo iibinaya soo meel halkaasaan ku geynayaa waxan baad samaysay wanaagsan maanta ilmaha hadduu wax wanaagsan sameeyo uu ku caawiyo umahada ilmaha hooyo waad mahadsan tahay dheh waad mahadsan tahay inaan soo maray maanta maqaayad baynu kasoo wada qadaynaynaa ama dhar yar ama kaba yar wax uu ilmuhu adigu farxad geliya ama lacag yaroo pocket money ah oo jeebka u gelisid waxun ilmaha kaga farxi xaqiiqatan waxaad ogaan doontaa ilmahaasi dadaalkii hadduu xagga iskuulka ahaa iyo hadduu guriga ahaaba inuu sii laba jibaaro marka aad sidaa ilmaha u samaysid qodobkaasi waa qodobkii saddexaad oo ilmuhu runtii aad bay muhiim u tahay inaad ilmaha abaalmarisid waayahay qodobkii shanaad baa qodobkii waxaan ka wadaa waxaan ku soconayaa afraad ayaan ku soconayaa soo ma haddaan qaldamayna halayga raalli ahaado ilmahaaga waa inaad la noqotid saaxiib ilmahaaga waa inaad la noqotid ama ha yaraado ilmuhu ama ha weynaado ilmahaaga waa inaad saaxiib la noqotid ma garat haddii saaxiib aad ilmahaaga la noqotid jaanis uma uu helayo dad kale oo xunxun oo qaldan ay saaxiib la noqdaan ama waxyaabo qalad ah ay ugu shubaan maskaxdiisa uma uu helayo waqti adigu ilmahaaga more close dad ka dhigatid ood waqti siisid ood saaxiib ka dhigatid xaqiiqatan lagama yaabo inuu dad kale sheekooyinkooda dhagaysto oo carruurtu markay intan da'dan ay jirto aan tilmaamay 5 sano ilaa 10 sano waa mararka ugu badan ee ilmaha dadka laga qaato weeyaan waayo ilmihi aadan si sax aadan wax ugu sheegin dee meel qalad u maraya marka ilmahaaga waalido waa qasab waana wax lama huraan ah waana wax qurux badan oo xaqiiqatan aad u qurux badan inaad ilmahaaga la sheekaysatid ood saaxiib la noqotid ood jacayl badan aad tustid ya ilmo jacayl badan la tusay oo lala saaxiibay oo kor iyo hoos lala socdo oo waqti la geliyey iska ilow maaragtay heblaayo aroos iyo dahabka iyo maaragtay duruucda iyo labada qof wada sheekaysanaya iyo labada isfuray iyo waxaas hawlku u taalla ma ah xarbi ayaa lagu jiraa haddii waalid la yahay oo qurbo aynu carruurta ku korsanayno runtii xarbi iyo dagaal ayaa lagu jiraa marka waxaas waxba kuu tarin maayaan dembi iyo xasarad unbay ku tahay dantaada hooyo inaad garatid ood ilmahaaga la saaxiibtid ood ma aragtay ilmahaaga jacayl badan aad tustid xaqiiqatan ilmaha jacayl badan haddii la tuso ilmo jacayl la tusay meeluu kaa tegayo ma jirto agtaadaba inuu ka fogaado ma uu doonayo ya markaa taa hala ogaado ilmaha jacayl badan hala tuso oo hala geliyo oo hala farxad geliyo insha allah intaynu ku kulmi doono programkan ka xigi doona waxaan idinkaga tegayaa salaanta islaamka oo ah assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu